بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxa luqadda Soomaaliga magacaygu Cabdinaan Ismaaciil emailka sida caadada ah waa info@sologroups.com waa English language iyo exams ama imtixaanaadka sala socotaan xilligan bilownay casharka English language waxaanu soo dirnay cashar aad u fara badan oo isugu jira practical isugu jira grammar isugu jira vocabulary iyo kuwa kale fara badan waxa kale oo jiray buugaag lagu sameyn karo iyo softwares digital ah iyo qaarkood interactive ah oo practice lagu sameeyo marka waxa muhiim ah in aan sameeyno imtixaanaadkaas aan isdhihi karno ardayda waxay ku ogaan karaan levelka iminka ka taagan yihiin marka kan wuxuu noqonayaa English level test marka meesha aad ka joogtid ayaa lagu garanayaa luqadda Ingiriiska waxyaabaha soo bixi doona haddii aan ka jawaabno waa 50 basic questions konton su'aalood oo aad u fudud oo kuwa basic ah ayaanu arki doonaa imtixaan ah kadibna haddii aad ka jawaabtid wuxuu kuu sheegayaa in Englishkaagu uu yahay levelada kala duwan ilaa iyo 4 ilaa iyo 5 level ayaa jirta markaas ayaad ogaan kartaa marka waxaad samaysaa ugu horeyn waxaanu aadaynaa dhanka iyo shabakada Solo Groups waxa ku jira imtixaanka linkiga idin soo diri doona English level test oo tijaabada nooca tahay marka kontonkan waxa ku jira saa ku aragtaan su'aal ayaa ku jira ugu dambeys markii aad istiraadid waad dhamaysay waxaad leedahay test result ayaa riixaysaa kadibna waxaad arkaysaa uu kuu sheegaya imtixaanka inaad ku baastay iyo inaad ku dhacday iyo isla markaa levelka aad ka joogtid marka wuxuu leeyahay halkan please choose one option for each questions then click a test result fadlan xul ayaa lagu leeyahay su'aal walbo halkan aad ku aragtid hal option ayaa jira A B C D halkan ayaa ku yaala hal kaliya aad dooranaysaa marka users must answer 70% to pass isticmaalayaasha waa in ay ka jawaabaan 70% imtixaanka si ay u gudbaan wixii ka yar 70% waad ku dhaxaysaa imtixaanka isla markaana levelka ayuu kuu sheegayaa tusaale ahaan su-aasha ugu horeysa wuxuu leeyahay how old are you ama imse jir ayaa tahay marka afartan option oo sidan ayaa lagu siiyey wuxuu leeyahay I have 27 years old I have 27 years I am fine I am 27 years old marka tiyaas leedahay jawaabteedu waa saxsan tahay isla markiiba hore ayaad ka xulaysaa iyo halkan ayaad riixaysaa waxa kale oo ku leeyahay halkan he went to the stadium wuxuu aaday garoonka kubadda cagta ama wuxuu ahaadaba garoonka ayuu aaday stadium marka jawaabta raacaysa wuxuu noqonayaa with taxi by taxi on taxi in taxi marka waxaad garanaysaa oo hubaal ah in Englishkaaga improvement uu sameynayo oo aad is oran kartid waxyaabo badan ayaa faa'iido sababtoo ah erayadan waa muhiim waa everyday English waa inaad saxdaa waxa kale oo ku leeyahay number 3ga how long have you been living in London imisana ayaad ku nooleed magaalada London for 7 years at least 7 years since 7 years 7 years ago marka adiga ay ku xiran tahay 7 sano ugu yaraan 7 sano ilaa iyo 7 sano iyo 7 sano kan waxa la rabaa in aad buuxisid spacekan halkan ka maqan adigoo xulaya un A B C D halkana wuxuu leeyahay we haven't got money a lot some any money marka Englishkaaga haddii aad ka jawaabi kartid improvement from basic to intermediate ayuu noqonayaa haddii aad ka jawaabi kartid waxyaabaha qaabkana number 5 wuxuu ku leeyahay select one of them in following sentence xul ayuu ku leeyahay kan ay isleedahay waa sax tusaale ahaan he liked going to the movies he likes going to the movies marka s ayaa raacda kan he liked dy going to the movies iyo ugu dambeyn he liked the movies marka tii ay isleedahay a sentence ama ereyada waa sax ayaad xulaysaa halkan wuxuu ku leeyahay Peter flying to San Francisco tomorrow shakhsigan la yidhahdo Peter oo P saan u baranay ka bilowda wuxuu uu aadaya ama u duulaya magaalada San Francisco berri marka to going goes to is going to go to midii sax kula ah adigu baa xulaya ma tan baa saxa goes to Peter goes to fly San Francisco tomorrow ayay ku jirtaa marka waxa ku xiga
he plays a soccer. A soccer North America waxaa la yidhahdaa kubadda cagta. Wadamadan Yurubna waxaa la yidhahdaa football. Marka, he plays soccer on Wednesdays, in Wednesdays, at Wednesdays, by Wednesdays. Arbacooyin ayaa lagu siiyey halkan kala duwan. Marka, adigu ayaa lagaa doonaya inaad ka jawaabtid. Halkan waxaa yaala space ayaa yaala. Some more coffee. Do you like, would you like? Number 9 wuxuu noqonayaa I wanted a green shirt, but they had only had. I wanted a green shirt, but they had only had one white, a white one. He, space ayaa la sameeyey halkan in la buuxiyo. Never been to America. Does, has, haven't, hadn't. Marka kuwanna wuxuu noqonayaa advance ayuu noqonayaa Englishkaaga haddii aad ka jawaabtid qaabkaas. Halkan waxaa yaala select one of them in a following sentence. Xul ayaa lagu leeyahay mid ka mid ah in uu yahay a sentence sax ah oo dhankana. Richard usually arrives late. Richard late arrives usually. Richard late usually arrives. Iyo ugu dambeyn Richard usually late arrives. Marka intan halkan taalla midkii kula sax ah kan ayaad xoraysaa keliya. Kan ku xiga wuxuu leeyahay the house was empty. There wasn't nobody, was anybody, was somebody, was nobody. Kan ku xiga wuxuu leeyahay if I were rich, I space buy a house on the beach. Haddii aan ahaan lahaa qof qani ah ama lacag ley ah, waxaan iibsan lahaa guri xeebta ku dhow. Will, would, should, wish. Halkan ayaad gelinaysa adiga ayaa lagaa doonaya. Marka fadlan qish yaa la sameynaya yaa lagu laaban sababtoo ah alqish alxaraam. When she arrived, he, space kan, already left, has already left, had already left. Marka erayadan has iyo hadna mustaqbalka ayaan baran doonaa, waana soo baranaysaa la socotaan meelahay galaan. Marka adiga ayaa lagaa doonaya. I forgot the lights before I left. To turn off, put off, turning off, shut. By the time you finish the class, xilliga aad dhamaysid classka, I will have left, leave, going to leave, would left. Marka inta badan qofka waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu gartaa in Ingiriisi fiican u bartay. Erayadan qaarkood ma isticmaalayo. Wuxuu isticmaalayaa sentence isla markiiba maskaxdiisa iyo afkiisa ay soo wada qabtaan oo ka dhiga sax qoraalada halkan ku jira. The room can be dirty. She just clean it. Have just clean it. Just clean it. Has just clean it. Way kala duwan tahay. Marka guriga ama qolka ma noqon karo mid dirty ah ama wasaq ah. Qofka dhedig ayaa la sheegayaa iyo ayay nadiifisay. Marka nadaafadda ayaa laga hadlayaa, adiga ayaa laga doonayaa saxdid. Marka qaabkaas ayuu socdaa. He plays soccer. If only I, space, to the party instead of staying home. Went, had gone, did go, have gone. Marka waa everyday English lagaa doonayo in aad saxdid oo aan gebi ahaan soo wada baranay. Kan labaatanaad wuxuu ku leeyahay has Mrs. Smith arrived? Space yet, still, now, already. Marka waxaa laga yaabaa qaarkood inay gelayaan laakiin hal kaliya ayaa laga rabaa. Wendy oo gabar magaceeda ah is Paul to get up now. Telling, saying, saying so, saying to, telling to. Have you sent that letter to Mr. Taylor? Yes, I have, space, done that. Marka si fiican Englishkan waa English British. Marka qaabka lagu dhawaaqana waa muhiim imtixaanka laftigiisa inaad ka maqashaan. Kaasoo ah have you sent the letter? Sababtoo ah t waan akhrinayaa si fiican maqal. Ma oran kartid, ma lumin kartid. Waddanka Ingiriiska qaasatan magaalooyinka London iyo kuwa nawaaxigeeda ah erayadan waa lumiyaa. Erayadan t-da qofkii lumiya English garan maayo. He cannot
speak English properly. marka ku hadli kari maayo ingiriiska. marka waa muhiim inaad tirahdid have you sent the letter to Mr. Taylor. waxaa laga yaabaa in haddii aad ka timaadid waddamada kale aad timaadid ereygan dadka ku nool London ay qaab kale u dhawaaqaan waa bad English jira ma ahan. waxay la mid tahay ereyada ka luma la lumiyey oo ah bad language-kana dhibaatooyinku fara badan tahay. shaqooyinka haddii ay ku maqlaan adigoo ku hadlaya ereyada qaarkood waxaa lagu leeyahay shaqa heli maysid ayaa lagu leeyahay. sababtoo ah waxaa lagaa doonaya inaad ku hadashid perfect English inaad ku hadashid. laakiin haddii aad tidhaahdid le-ah haddii aad tidhahdid tiigaa ka lumisid waa lagaa tegayaa. ama haddii aad tidhaahdid wuu oo ah biyaha la yidhahdo wuuta waa inaad tiiga waa inaad tidhaahdaa. marka haddii aad baranayso luqadda ingiriiska ereyadan ha lumin. marka still, yet, already, now. halkan wuxuu leeyahay it's no use to him, he doesn't listen. It's not used to him, he does not listen. Speaking, to speak, spoke, have spoken. 24 wuxuu leeyahay this is the girl, space ayaa lagu sameeyey, I met on Thursday. ma humba, ma wishba, ma whatba, mise maba u baahna in wax la geliyo. saas ayuu noqonayaa. spacekan wuxuu leeyahay is your house from here, how much, how long, how far, how many. tusaale ahaan how much is your house from here lama dhihi karo, hore ayaa laga garanaya. how much is your house from here waa wrong, waa qalad. you can watch TV you like whenever, soon, always, whatever. this house is quite old. it in 1910 was built, has built. marka ma dhihi karnaa this house is quite old, it has built ma dhihi karnaa? tabcan maya, waa qalad. marka saddexdan kale ku horay hint ayaan kusii siiyey ama xogaa waan ku yara fududeeyey. she go to school yesterday, must, had to, ought to, should have. adiga ayaa garanaya, waa imtixaanka. that is the of the worries, it will never happen, fewer, less, last, iyo least. ereyadan dhan gebi ahaan waan soo wada baranay. don't, me, I'll be back late, hope for, waiting for, expect, wait for. Sodonico, the lady in the corner is my auntie. islaanta dhanka dambe fadhisa waa eedaday. marka ereyadan keliya ma ahan imtixaanka, waxaanu ku baranaynaa ku dhawaaqidda pronunciationkii aan soo baranay casharadii hore. waxay ereyo badan ayaan ka baranaynaa. marka whose is sitting, sits, a sitting. isku qaab ayaa lagu dhawaaqaa laakiin micnaha way kala duwan yihiin. select one of the following sentence. xul ayaa lagu leeyahay. qoraaladana is leedahay waa sax. he used to play chess very often. he uses play chess very often. he was played chess very often. he didn't playing chess very often. marka very often mar walba way ku jirta laakiin mid baa sax ah. waan u jeedaa. marka waa inaad aragtaa. he doesn't like space what to do. laakiin aad tirahdid what to do. waxaa lumisay tiigi. mar walba ha lumin tiiga. luqadda ingiriiska baran maysid tii aa lumisid. ma dhihi kartid. waxaad leedahay what. waa inaad tidhaahdaa. told, said, having said, being told. soddon wuxuu leeyahay I space it doesn't rain tomorrow, I'm going for a picnic. p ayaan isticmaalaynaa. haddii roob uusan dayn berrito waxaan aadayaa meel banaan la fadhiisto cunto lagu cuno ayaa la yidhahdaa. picnic ayaa la yidhahdaa luqadda ingiriiska. marka wuxuu leeyahay marka wait, expect, hope, wish. marka halkan ayaad gelinaysaa, halkan ayaad riixaysaa. I thought you, waxaan u malay adiga, will come to the party. tiiga mar walba soo saaraya. laakiin haddaan idhaahdo will come to the party,
tii ayaan lumiyey waa bad English. We're coming to the party. Come to the party. Have come to the party. Marka boqolkiiba boqol kan waa qalad kan diiga. Marka waa hint ayaan siinaya ama waan idin yara tusaya. Marka kuwa kale waad eegaysaa. Marka qaabkaas ayuu soconaya. Weli waan wadaynaa. He remembers being to the fair as a child, visited, brought, taken, shown. Soo booqday oo noocyo kale ah. Finishing a course is always dhammaynta xisadaha kala duwan la barto mar walba waa as satisfying, as satisfaction, as satisfies, satisfied. Marka siday u kala duwan yihiin luqadda Ingiriiska bal eeg. waa maaragtay maqsuud ayaa la yidhahdaa waa kulley waxaan filayaa inuu yahay luqadda carabiga waa aad baan ugu maqsuuday as satisfaction, as satisfied, satisfies. Marka erayadan waa sax oo waxay galaan meeshii loogu talagala laakiin sentencean ma wadageli karan dhammaantooda tabcan ma wadageli karaan hal ayaa geli karta keliya. She worked hard yesterday and finished everything. She aad u wanaagsan ayay u shaqaysay shalay shaqadii way dhammaysay. Can was able to is hard let. Select one of them in the following sentence. xul ayaa lagu leeyahay. Ask her when will be ready the food. Ask her when the food will be ready. Ask her when will the food ready be. Ask her when will be the food ready. Marka mid ayaa sax ah. Waxaa ku xiga select one of the following sentence oo ah that is a brown attractive leather coat. That it's a brown leather coat attractive. Marka kan طبعا waa qalad. That's an attractive leather brown coat. That's an attractive brown leather coat. Marka ku dhawaaqida waa habka lagu barto luqadda Ingiriiska qaabka uu yeerayo waad garanaysaa xilliga uu yahay qaladka. I wish I space a car. I'm tired of catching the bus. Waxaan jeclaan lahaa gaari inaan lahaado ama aan haysto waxaan ku daalay in maalin walba bas aan raaco kale. Have, had, would have, had. Marka ereygan waa sax waa la isticmaala laakiin halkan ma gelayo tabcan meel kale ayaa loo isticmaali karaa. Peter oo shakhsiga waa lab can eat as 20 oranges in one sitting. Kan aad ayuu muhiim u yahay sababtoo ah ereygan meesha uu gelayo waa ku sax laakiin haddii qof aan luqadda Ingiriiska aqoonin la yiraahdo waa maxay micnaha aad ay u adkaanaysaa. Marka shakhsigan Peter la yiraahdo wuxuu cuni karaa 20 orange ayuu cuni karaa liinta macaan ayuu cuni karaa in one sitting. hal mar ayuu wuxuu cunaa 20 orange waa qof maaragtay cuntadiisa aad ay maaragtay u wanaagsan tahay sida wuxuu cuno. So many, so much, as many, as much. I know he didn't thank you, but he have done so. Should, may, must, would. Waan ogahay inuusan ku mahadcelin laakiin waxaa wanaagsaneed inuu sameeyo saas ayuu soconayaa. I won't go to the cinema. Aadi maayo shineemada. You come with me. Except, otherwise, unless, therefore. Marka hore ayaad ka fahantaynayaan garanaya. Marka wuxuu leeyahay he wrote the letter space he didn't need anybody's help. Waraaqda ayuu qoray umana baahneen qof kale inuu gacan ka siiyo on his own, by his own, on himself, by his ownership. Adiga ayay kugu xiran tahay. Hotel rooms must be by noon. Qolka, hotelka, galbihii. Vacated, evacuated, abandoned, leave. Erayadan isku mid ayay u socdaan laakiin mid kale ayay halkan ka gelaya. Isku qaab ayay maaragtay translationkeeda ama xilliga la tarjumaya isku qaab ayay u shaqeeyaan laakiin mid kale ayay halkan gelaya. You can take the book with you, you give it back. Buugga waad sii qaadan kartaa laakiin soo celinta. As well as time as far as long as. Kana waa muhiim. Let's go watch the game. Inakeen aan daawane ciyaarta. Will we? Shall we? Let us? Calaamad su'aal. Don't we? Kana waa muhiim. Hal erayaa ka sax ka ah. Halkan ayaad ka xulaysa. I need to finish this Friday. Waa inaan dhameeya maalinta Jimcaha ah. Ma durinba, byba, until, at. Ugu dambayn wuxuu ku leeyahay after many years of research they found the solution.
sanado aad u fara badan oo cilmi baaris la sameeyey kadib waxay heleen waxyaabihii solution keeni lahaa ama wixii la raadinaya loo heli lahaa at the end, at last, by the end, on the end hal ayaa lagaa doonaya marka wuxuu u kala baxaa different ayuu u kala baxaa marka dusha haddii laga soo bilaabo kan koowaad ilaa iyo 5 wuxuu ku noqonaya basic waxaad garanaysaa xilliga ilaa aad ka soo gaartid advanced intermediate iyo meesha ugu dambaysa marka markuu halka soo gaaro waxaa lagaa doonaya inaad tirahdid test result inaad tirahdid waad riixaysaa marka English levelkii kan waa go back haddii aad ku laabanaysid English levelkii result san ayuu soo baxayaa level test wuxuu ku soo saaraya tusaale ahaan aniga 0 correct eber waxba ma saxin out of a conton marka hal wax oo lay soo weydiiyey oo imtixaanka ma saxin marka levelkaygu waa beginner weli sababta waxba ma aan saxin fail ayaan noqday adiga xilligaad isku daydid dhammaan contonka oo levelkaad ogaatid levelka halkaan ka level is number 1 ama number 2 ama number 3 ama number 5 ayuu noqonaya beginner intermediate advance ilaa uu ka gaaro laakiin 70% haddii aadan marin wuxuu ku leeyahay fail ayuu ku leeyahay marka waxaa muhiima ardayda wax ka barata solo groups haddii levelkiina uu wanaagsan yahay oo pass a samaysaan fadlan idinkoo mahadsan screenshot ka qaada halka ama sawira idinkoo isticmaalaya ama snagit ama screenshot noocu ahaadaba ka soo qaada sawir ka qaada idinkoo halkan kusoo qoraya magaciina anoo ah hebel hebel magaca kaliya kusoo qor waa baase c marka encouragement ay ku noqoto oo maaragtay macalinka marka uu yiraahdo ardayga wuu baasay marka haddii aadan baasinna waxaad samaynaysaa ku laabo isku day mar kale marka dambe waad fahmaysaa ku dhawaaqida waxaad ku laabataa casharadii kale ee luqadda ingiriiska ee shabakada ku jiray si waxyaabaha qaarkood uga heshid marka waxaan filayaa imtixaanka oo ah kan ugu horeeya iyo kuwo kaloo imaan doona insha allah inaad aad ula dhacdeen marka waa very good improvement ayaad samaynaysaa haddii imtixaanka aad gashid wixii macluumaada mar walba ku saabsan casharada ka baxa shabakadda ICT iyo English iyo wixii aad doontida cusub in la sameeyo mar walba info@sologroups.com oo ah emailka kaliya ee shabakadda laga soo xiriiri karo anigoo ah macalin cabdinaasir intaa wada kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu